بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ku sugannahay hoolka teendhada Afisyooni. maanta saad la socotaan waxay ahayd maalintii doorashada guddoonka golaha shacabka. waxaan rabaa inuu isbaaro u dhigto madaxweynaha mudxiliyeedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waan isbaaradii ugu dambeysay tanna ma ahayn tii ugu horeysay. wuxuu hore ugu soo dhigtay Dhowsamareeb 1 iyo 2 iyo 3. wuxuu u soo dhigtay 17 September xilligeedii extension buu aaday. wuxuu soo dhigtay tii dhaarinta xildhibaanada oo iyadan caqabad badan ay ka jirteen aan la socoteen. hadda guddoonka golaha shacabka doorashadiisa ayuu rabaa inuu isbaaro u dhigto. sabab waxaas dhan waxaa ku kalifaya waa nin quustay oo rajo aan ka lahayn Soomaaliya, oo rajo aan u lahayn in dib loo doorto, oo mustaqbal xumo iyo future la'aan u muuqato. marka wuxuu go'aansaday dalkan inuu geliyo khalkhal iyo burbur iyo hay'ad dastuuri inayna dhismin. asagoo madaxweynihii qaranka mudxiliyeedkiisa dhamaaday ee dalkan wuxuu fidno u gelinayaa hadda isbaarada u dambeeyay u dhiganayaa 12 kursi oo laga soo doortay magaalada Ceelwaq oo maray habraaci guddiga siid iyo fiid iyo state-ka iyo xafiiska ra'iisul wasaare kurjoogtaynta iska lahaa. si aad la socotaan maanta in process dimuqraadi ah isbaaro loo dhigto, ciidamada waddooyinka lagu soo daadiyo, booliis in waswad la isticmaalo, wariyaasha bannaanka lagu jirdilo, lagu garaaco, xabado lala dhaco, waxaas oo dhan waxay ka hor imaanaysaa shuruucda dalka u taal. laakiinse Farmaajo iyo tiimkiisa weligood sharci ma ilaalin, wayna ku tuntaan. dalkanna hadda waxay gelinayaan foodo. waxyaabaha u yaabka badan ee waddanka hadda ka dhacaya waxaa ka mid ah xaruntii Villa Hargeysa ee lagu shaqaynayay waa nimanka hooyaasha ku soo garaacay. xaruntii baarlamaanka ee siiyadii iyo haantii ay xabado la dhaceen. askar dowladnimo sheeganaysa oo la soo amrayo oo bisoolado wata oo qoryo wata oo afduuban ayaa intay soo galeen burburinayaan hantidii dowladda. waa dhaqan jirrinimo oo ka baxsan xeyndaabka dowladnimada. ninkan asagoo hadda muddo sanadii ka badan sharci darro ku jooga ayuu intaasi samaynayaa. waxaan ku sugannahay hadda maanta Afisyooni. waxaan ugu sugannahay xerada teendhada in guddoonka golaha shacabka la doorto. wuxuu dabcay inuu ciidamo ku soo daadgurayo. Amisom ayaa la wareegtay. hoolku waa safe. Adbis ayaa la wareegtay. xildhibaanada way soo socdaan. guddoomiyaha ku-meel gaarka ugu jooga shajaraad buu qabtay in la soo xaroodo. dhammaan xildhibaanada saaxiibaday ah waxaan ugu baaqayaa in la soo wada xaroodo. ninka lagu soo gali kara, ninka ciidankiisa ku soo gali kara, nin walba awoodda ku soo gali kara inuu ku soo galo. waxaan gudanaynaa waajib dastuuri ah inaan la idin cabsi gelinin, inaan khalkhal idinku abuurin, in dadka qaarkood aan la dhihin maanta waa la banadaa meesha yaa la tegin. waxaan ugu baaqayaa maadaama hoolka hadda aan joogno xildhibaano kaloo badan ay joogaan inaad imaataan ilaa ay afurka halkan aan ku afurno ilaa ay guddoon golaha shacab maanta aan ka dooranayno haddii Ilaahay ka raan noqdo. dalkan guddoonka aqalka sare waa la doortay. guddoonkii golaha shacabka kale ayaa haray. ra'iisul wasaaraha maanta ayuu yimid. teendhada iyo elbarka gudihiisa iyo aagga ay ka dhacayso doorashada kulli waa safe. hadda annagaa ku sugan. dhammaan xildhibaanada waxaan u baaqayaa in la soo wada xaroodo si waajibkeena dastuuriga aan u gudanno. waana isbaaradii ugu dambeysay iyo jagboyntii ugu dambeysay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhigto. waxaa sumcad darro ugu filan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo inta la shaqaysaba in maanta la isku haysto oo uu diidan yahay in dadkii reer Gado ee matalaadooda ka qayb galaan doorashada guddoonka golaha shacabka iyo madaxweynaha maadaama maslaxadiisa gaarka uu ka waayay. dagaalkii Galbaharre iyo Balad Xaawo wuxuu u soo wareejiyay teendhada iyo Xalane. wuxuu ku soo aruuray difaaciisa u noqday hadda in isbaarooyin uu dhigto agagaarka airportka. waxa lagu cusub madaxweyne isbaaro dhiganaya oo jagboonta dhiganaya oo xildhibaano qaran isbaaro u dhiganaya
waa dhaqan aad u foolxun waxaan qori doonaa petition haddana xildhibaanada labada aqal oo ah maadaama madaxweynaha dastuurka ku qoran tahay muddaxileedkiisa dhammaysta xilligiisa si nabadgelyo ah ku wareejiya oo dimuqraadi ah ku wareejiya xilka wuxuu noqonayaa xildhibaan sharafeed buu noqonayaa oo baarlamaanka ka tirsan laakiinse maadaama fidno iyo foodo iyo dagaal iyo xabad wixii ka dhacay Villa Hargeysa wixii ka dhacay afisyooni teendhada wixii ka dhacay Airport Hotel dar xabadaha la dhacay guddoonka la soo weeraray maadaama falalkaasi guracan uu sameeyay waxaan qoraynaa petition ah inuu noqon doonin xildhibaan sharafeed ka mid noqda golaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sida Xasan Sheekh uu hadda uga mid yahay marka insha Allah ma noqon doono xildhibaan ka mid ah xildhibaan sharafeed ka mid ah xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ma noqon doono petitionkaasna waan bilownay maadaama falalidii ku ah iyo argagax leh iyo kutumbasho dastuur iyo burbur iyo fidno iyo dagaal in waddanka geliyo oo horena ugu horseeday haddana wali uu ku taagan yahay petitionkaas ayaan wadnaa waana boobsiinayna hadduu ilaahay ka noqdo waxaan geyn doonaa baarlamaanka in ninkaasi uu noqon xubin sharafeed maadaama baarlamaanka uu ku soo biirin maadaama baarlamaanka 12aad maadaama extension uu aaday danna uu laayay doorashadii isla istaag uu ka sameeynayo haddana weerarka wali uu ku wado taas ayaan iyadana ka shaqeynaa hadduu ilaahay ka noqdo xildhibaanada saaxiibada ee labada aqal xildhibaanada saaxiibada golaha shacabka ah waxaan u baaqayaa meel walba ay joogaan inay soo xaroodaan oo maanta loo baahan yahay in la muujiyo geesinimo waxaan aniga ahayd baarlamaankii 10aad ayaan ku jiray hore ay ii soo mareen baarlamaan la qabsado jawaari ay soo martay kii gudoomiye maxamed mursal ayay soo martay tii markii ra'iisul wasaaraha la ridayay ayay soo martay tii extensionkii oo annaga 15 xildhibaan aan ku diidnay isbaarada loo dhigto ayna soo martay marka anaga isbaaradan iyo dhaqan xumadan iyo falalkan guracaan ee dastuurka hor imaanaya hore ayaan u soo aragnay xildhibaanada cusub ee shacabka Soomaaliyeedna hanala arkaan iyo baarlamaanka cusub waxaan u rajaynayaa insha Allah maanta inaan gaarno guul inaan gaarno go'aan masiiri ah inaan doorno guddoonkeena waxaan u baaqayaa in guddoomiyaha kumeel gaarka ah ee baarlamaanka golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in amarkiisa la qaato la soo wada xaroodo ciidanka booliiska ee la khaldaayo inaba sugidda ah مسؤول قرن بدن سارن فرماجة حلقي سوود ماضي حجار ولا جوجي شقد إن شقها يا معها كلا حلوان هذا بريكو الدفاع حقوق دين البرلمان كجيني وياجا كو حق مشاركين دي كورنينا يا وياجا كو جوكتان أو وردين سوا وياجا ده شرف لواتين حلوان دين يالله كودرين ودوني كبناية حلوان هذا نوفصحة كان هرلاحة سعانا لوجو تواجبات الدستوري جاه نكون وتجي ننا نفرينين يون دين هذين نتجي أورفاني ويان والنف جور عن جد كم واطو سكرات الموت قدام بيجي كجرا مركب حين كعصنا إنا وحامر لا قادن أو له جان سمش شرع ذلك يقدميها كم الجار كأقولها شعب كوام حسنتين